madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanye iyo waftigii uu hogaaminayay safarka shaqo ku maraya qaar ka mid ah gobolada Soomaaliland ayaa soo gaadhay magaalada Burco kaasoo weli ku guda jira safarkiisii ujeedadiisu ay ahayd xogogaal noqoshada shacabka Soomaaliland si wax loogu qabto marka la ogaado waxa ay u baahan yihiin dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco oo xiise weyn u qabay soo dhaweynta madaxweynaha isla markaana naawilayay inuu yimaado gobolka Togdheer ayaa si maamuus iyo sharaf iyo waliba muwaadiniinimo ay ku dheehan tahay ugu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waftiga madaxweynaha Soomaaliland ee socdaalka shaqo ku yimi magaalada Burco kuwaasoo wadada hareeraheeda la taagnaa calanka Soomaaliland caleemo qoyan iyo waliba erayo u gaar ah soo dhaweynta madaxweynaha oo ay ka mid ahaayeen soo dhawow madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii uu soo gaaray magaalada Burco waxaa loo gulbiyay dhinaca aqalka madaxtooyada ee magaalada Burco.